ninkan ujeeda magaciisa waxaa la yiraahdaa Robert Taylor wuxuu u shaqeyn jiray kambaniga caalamiga oo magaciisa la yiraahdo Johnson & Johnson sanadka markuu ahaa 1964 Taylor kambaniga uu shaqeynayay wuu ka shaqeystay wuxuu furtay kambani asoo gooni ah wuxuu ku furtay lacag asi meel uu dhiganayo gaarayso $3,000 sanadka markuu ahaa 1977 Robert Taylor kambanigiisa ayaa wuxuu soo saaray saabuunkii ugu horeeyay oo ahaa saabuun dareere ah saabuunkaasi oo lahaa meel yar oo laga riixo riixitaankaasi markaad riixdo ayaa wuxuu ku soo dhiijinayay saabuunkaasi oo gacanta aad marsan karto sanadka markuu ahaa 1979 Robert Taylor mashruuciisa ayaa banaanka soo dhigay alaabtii oo soo saarayna wuxuu bilaabay inuu iibgeeyo bilawgii Taylor uu cabsanayay wuxuu ka cabsanayay inuu la kulmo khasaaro balse sanadka markuu ahaa 1980 alaabtii oo soo saaray Taylor uu iibgeeyay laakiin Taylor wuxuu la kulmay waxyaabo ka yaabiya taasoo ah in uu la kulmo faa'iido aad iyo aad u badan wuxuuna gaday oo faa'iiday lacag gaarayso $96 milyan kambaniyada ugu waaweynaa wadanka ayaa arkay ninkan inuu lacag badan ka sameeyay oo ka faa'iiday suuqna ay u yeelatay maadada hadda oo soo saaray ayaan markii wax isku dayeen inay sameystaan ninkan wuxuu sameeyay balse Taylor wuxuu ahaa nin caqli badan oo farsamo miran muxuu sameeyay wax uu sameeyay ayaa waxay ahayd caaga lagu shubayo saabuunka dareeraha meesha la riixayo meesha dhijinayso soo saaray saabuunkaas dareeraha ah baniyada soo saaro dalka Mareykanka wuxuu la galay contract heshiisa wuxuu la galay heshiisa inaysan soo saarno sameeynin caagidan oo kale oo lagu talgalay saabuunka dareeraha ah caagidan oo kale markay imaadeen kambaniyada lacagta lahaa oo rabeen inay ayagana sameeyaan mashruuca ninkan oo la imaado oo kale kambaniyadaas waxay la kulmeen ninkan oo xirtay suuqi oo ku xirtay in aan laga gadan أنا لسمينين فرك عاجة أو مش العسكرة مش لطوجنايو أو أي كإيمانيسو وحيابها دريرايو وحسمي ولا حرت السوق قاس مدجارس لبسنو كمبنية ذان إن أعلن لجدين سوق قاس أسوق وحرنا مدجارس ولا بسنو marka Mareykan waxa ku yaalay laba kambani kaliya oo kuwaas oo laba kambani oo sameeyo furkan tuujiska mise la riixayo oo soo saarayo maadadani dareeraha marka labadaas ninkan suuqa xaraan ku haystay suuqana soo xirnaa lacag badan oo ka faa'iiday waxay ka dhigtay nin taajir ah sanadkii koowaad wuxuu helay lacag gaarayso $39 milyan sanadkii labaadna oo kambanigaasi oo u xirnaana wuxuu helay lacag gaarayso $96 milyan ugu dambeyntii 2 sano kadib kambanigii uu gaday wuxuuna ka gaday kambaniyadii lacagta lahaa taajiriinta ah suuqa haystay wuxuuna ugu gaday lacag gaarayso $380 milyan oo ka faa'iiday si fiican waa ka caqli